cana wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid kusoo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee Maracadda Show. Qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah maxay tahay halista dowladda Jabuuti kaga imaan karta gudaha dalka Kenya, maxaase ka jira in ciidamada Jabuutiyaan la dhoobo xuduudda Itoobiya iyo Jabuuti ay wadaagaan. Dowladda Itoobiya oo bilowday in qaab cusub ay ula dagaalantay TPLF iyo banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Addis Ababa. Saraakiisha ciidanka Mareykanka ee ka baxaya Afghanistan oo qirtay Taliban inay la wareegi karaan ammaanka guud ahaaneed ee dalkaasi, iyo macluumaadka ku saabsan madaxweyne dal Afrikaan hogaamiyaha oo toddobaad gudihiis mar kale isku day dil ka badbaaday. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka ee Maracadda Show. Kusoo dhawow mar kale barnaamijka falanqaynta. ay taagan tahay xiisada ka dhex jirta gudaha dalka Itoobiya, isla markaana laga baqay qaar ka mid ah wadamada gobolka inay saameyn ay ku yeelato gaar ahaan wadamada xuduudda leh ee dalkaasi, ayaa dowladda Jabuuti markii ugu horeysay waxay macluumaadyo dheeri ah ka bixisay warar sheegaya in ciidamo Jabuutiyaan la geeyo xuduudda ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Jabuuti. Arrintan walaaceeda ayaa aad u sii kordhay wixii ka dambeeyay markii kooxda TPLF ay gacanta ay ku dhigeen gobolka Canfarta oo laga baqayo in sidoo kale ay qabsadaan wadada muhiimka ee xiriirisa magaalooyinka waaweyn ee dalalka Jabuuti iyo Itoobiya, gaar ahaan isha dhaqaalaha ganacsiga oo ay doonayaan in dhaqaale badan ay ka helaan kooxda TPLF. Markii ugu horeysay dowladda Jabuuti ayaa waxay ka hadashay halista kaga imaan karaysa gudaha dalka Itoobiya inta ay gaarsiisan tahay iyo macluumaadka ku saabsan in ciidamo Jabuutiyaan ay u dirtay xuduudda labada dal. Dowladda Jabuuti ayaa markii ugu horeysay ka hadashay arrintaasi, waxaana mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ay shaaci ka qaadeen in aanay jirin ciidamo dhankooda ka tirsan oo ay u daabuleen xuduudda Itoobiya ay la wadaagaan, iyagoo shaaca ka qaaday in aanay doonaynin in marnaba ay saameyn ay ku yeeshaan khilaafaadka u dhexeeya xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyo kooxda TPLF ee hardanka adag ugu jirta mar kale inay hanatay deegaanadii laga qabsaday 8 bilood ka hor markii ciidamada ammaanka guluf colaadeed ay ku qaadeen gobolka Tigreega. Macluumaadkaas ayaa dowladda Jabuuti waxay shaaci ka qaaday inay marnaba aysan qorshaha ugu jirin in ciidamo Jabuutiyaan ay u dirto xuduudda ay la wadaagtay dowladda Itoobiya sida ay shaaciyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda. Laakiin beenintan ayaa waxay noqon kartaa mid siyaasadaysan, taasoo ku aadan TPLF inaysan cadow u noqon dowladda Jabuuti. Mas-uuliyiinta dowladda Jabuuti ayaana sidaasi xaqiijiyey. Waxa ay shaaci ka qaadeen geemkan ama ciyaartan inay tahay mid u dhaxaysa ciidanka federaalka ee Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada jabhadda TPLF, taas oo la sheegay in saameyn marnaba aysan ku yeelan doonin wadada muhiimka ah ee dhanka ganacsiga isku xirta dalalka Jabuuti iyo Itoobiya. Wasiirka wasaaradda warshadaha, dhaqaalaha iyo ganacsiga ee dowladda Jabuuti Ilyas Ducaale ayaa beeniyay macluumaadkan oo warbaahinta aad u hadalhaysay 24 saac la soo dhaafay, waxaana intaasi uu ku daray dowladda Jabuuti inaanay jirin wax dhaqdhaqaaq ay ciidamadeeda ay ka sameeyeen xuduudda ay la wadaagaan dowladda Itoobiya. Waxaa kale oo uu sheegay inaanay jirin halis weyn oo kaga soo wajahan gudaha dalka Itoobiya, sidoo kalena aysan jirin khatar iminka Jabuuti ay ka baqanayso, taasoo ku aadan in taxadar badan ay muujiso. Waxaa kaloo uu caddeeyey in gobolka ay la doonayaan xasilooni iyo nabadgelyo inay ku wada noolaadaan dadka ku nool wadamada ku yaala bariga qaaradda Afrika, siduu hadalka u dhigay. Waxaan rabaa inaan kuwa xaqiijiyo ma jiraan hal askari oo ka mid ah ciidamadeena ama guutada ciidamada militariga ee dowladda Jabuuti inay u dhaqaaqeen dhanka xuduudda. Waxaan kaloo aan xaqiijinaynaa inaysan jirin wax khatar ah oo aan ka walwalno oo naga imaan karaysa gudaha dalka Itoobiya. Waxaana rumaysannahay in gobolka oo idil nabad aan ku wada noolaanayno dhinacyada kala duwan, ayuu yidhi Ilyas Ducaale, wasiirka wasaaradda warshadaha, ganacsiga iyo maaliyadda ee dowladda Jabuuti. Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo saacadihii ugu dambeeyey si adag loo hadalhayay ciidamadii ugu badnaa oo dowladda Jabuuti ka socda, kuwaas oo la sheegay in dhanka xuduudda loo daabulay. Waxaa kaloo wasaaradda gaashaandhigga dowladda Jabuuti ay shaaci ka qaaday inaanay jirin sawirro lasoo bandhiga, kuwaas oo ay sheegeen in keliya aaladaha baraha bulshada laga soo qaatay, kuwaas oo lagu xaqiijinayo in ciidamada ammaanka ee dowladda Jabuuti ay aadeen dhanka xuduudda. Warbaahinta dowladda Jabuuti ayaa sidoo kale beeninaysa macluumaadkan. Inkastoo dowladda Jabuuti gabi ahaanba arrintan ay qarinayso oo ay noqon karto arrimo dhanka siyaasadda ah, haddana macluumaadyada soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dowladda Jabuuti ciidamadii ugu badnaa dhanka xuduudda ay u dirtay iyadoo ka taxadiraysa ammaanka. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya ayaa waxay bilowday inay qaab cusub ay kula dagaalanto jabhadda TPLF ee dagaalka kula jirta ciidanka federaalka ee Itoobiya.
tobannaan kun oo dad ayaa isugu soo baxay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalkaasi Itoobiya maalintii shalay iyaga oo shaaca ka qaaday in marnaba aanay dooneynin in jabhadda TPLF ay dib u qabsato deegaano dhowr ah oo dalkaasi Itoobiya ka tirsan. Isu soo baxan ayaa wuxuu ka dhacay fagaaraha caanka ee Meskele ku yaala magaalada Addis Ababa, halkaas oo dadka ay ku soo baqaateen calamada dowladdaasi Itoobiya, sidoo kalena ay garab istaagay u muujiyeen ciidamada ammaanka qaranka ee dalkaasi. waxaa sidoo kale banaanbaxyada ay ka dhaceen qaar ka mid a xaafadaha waaweyn ee ku yaala magaalada Addis Ababa. TPLF waxay bedeshay xukunka Itoobiya waxaana ay haysay 27 sano, laakiin iminka ma doonayno in lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha, awoodana ay noqoto mid dadka lagu tunto. Sidaas waxaa sheegay qaar ka mid a dadka banaanbaxyada dhigayay oo la hadlay warbaahinta. siyaasadda TPLFna waxay ku sheegeen inay tahay mid la doonayo in lagu kala qaybiyo dadka reer Itoobiya sida ay shaacay ka qaadeen dadka banaanbaxa dhigayay. jabhadaasi TPLF ayaa gacanta ku dhigtay magaalada Maqale ee caasimada dhanka waqooyi ee gobolka Tigreeg iyo magaalooyin kale oo dhowr ah, halkaas oo ciidamada ammaanka ee dowladda Itoobiya guulo waaweyn ay ka gaareen 8 bilood ka hor markii ay ciidamada TPLF ee gebi ahaanba halkaasi ay ka saareen. saraakiisha ammaanka ayaa hadda waxay sheegayaan in TPLF ay u muuqato in wadamada reer galbeedka iyo kuwa gobolka oo qaarkood argagixiso ay ku tilmaamtay inay taageerayaan si ay gebi ahaanba dalkaasi Itoobiya ammaankiisa u qalqalgeliyaan. macluumaadyada soo baxaya waxay sheegayaan in khasaaraha ay sii kordhayaan. in ka badan 28 ruux oo rayid ayaa lagu waramaya inay ku geeriyoodeen, 10 kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen kadib markii dagaallo ay ka dhaceen qaar ka mid ah magaalooyinka gobolka Canfarta ee dalka Itoobiya, sida lagu sheegay macluumaadkan oo ay baahisay warbaahinta AFP. in ka badan 10 kun oo qofna waxaa lagu waramayaa inay ka barakacayaan dagaalada ka dhacaya gobolkaas. ciidamada ammaanka ee TPLF ayaa gacanta ku dhigay deegaano gobolka ka tirsan, waana midda laga baqayo inay saameyn ku yeelato qaar ka mid ah wadamada gobolka. durba qaar ka mid ah dowladaha deriska la dalkaasi Itoobiya ayaa waxay bilaabeen baqdinta xoogan ay ka qabaan in dagaalkaasi saameyntiisa uu gaaro gobolada deriska la ah. isku dhacyadan ayaa waxay ka dhaceen gobolka Canfarta, waxaana lagu waramayaa dadkii ugu dambeeyay ku geeriyooday inay ahaayeen kuwa rayid oo waxyeello ay ka soo gaartay rasaasta dhinacyada kala duwan ee isweydaarsanayaan. maxamed xuseen oo ka mid ah saraakiisha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda Itoobiya ee fadhigeedu yahay gobolka Canfarta ayaa shaaca ka qaaday kadib markii uu la hadlay wakaaladda wararka ee AFP in howlgalkaasi ay waxyeello kala duwan ay ka soo gaaraysa dadka rayidka ah. waxaa kale oo uu sheegay in ku dhowaad 70 kun oo qof ay saamaysay dagaalada, gaar ahaana si dadban ayuu sheegay inay saameyn ay ugu yeesheen maadaama 20 ay dhinteen, dad kalena ay ka barakacayaan goobaha lagu dagaalamayo. Itoobiya ayaa waxay u muuqanaysaa inay faraha la gelayso colaado sokeeye oo saameyn ku yeelan karaya horumaradii ka jiray qaar ka mid ah gobolada dalka Itoobiya sida warbaahinta ay baahinayso. xasaradaasi waa laga dareemayaa. Itoobiya diyaargarowgii ugu dambeeyay ayay ku jirta oo ay doonayso in guluf colaadeed oo wadajir ah ay mar qura ay ku qaaday ciidamada ammaanka ee TPLFna dhankeeda waxay wadaa ishubayn xoogan oo ay doonayso inay kaga hortagto ciidamada ammaanka ee dowladda Itoobiya. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku eegi doonaa. qaybaha kale ee ugu dambeeya haddii aan eegnana saraakiil sarsaro ka tirsan ciidamada Mareykanka ee isaga baxaya gudaha dalka Afghanistan ayaa markii ugu horeysay si cad waxay u xaqiijiyeen kooxda Taliban inay ku guuleysan karto xaqiijinta ammaanka gudaha dalkaasi Afghanistan, laakiin ma uusan sheegin waqtiga ay mas'uuliyadda guud ahaan ay la wareegi karayso kooxdaani. saraakiisha ciidamada ammaanka oo ka mid yahay Mark Milley iyo wasiirka gaashaandhigga ee dowladdaasi Mareykanka Lloyd Austin ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii ay u xaqiijiyeen in ay 31 bisha Agoosto ee soo socotay ay tahay waqtiga kama dambaysta ciidamadooda isaga baxayaan gudaha dalkaasi Afghanistan. saraakiishu waxay sheegeen in ku dhawaad 419 degmo oo ku taala gudaha dalkaasi Afghanistan ay iminka ay maamulaan kooxda Taliban, sidoo kalena ay suurtagal ay tahay inay gacanta ku dhigaan in ka badan 34 gobol, taasoo kooxda ay la wareegtay taasoo kooxda ay ku xooganay sanadihii ugu dambeeyay. kooxda Taliban ayaa weli waxa ay tahay mid laga baqayo in guud ahaan ammaanka dalka Afghanistan ay la wareegto kadib markii ciidamada Mareykanka ay isaga baxaan, waana sababta keenaysa in dowlado badan ay walaac xoogan ay ka muujiyaan dalkaasi Afghanistan iyo sida xaaladiisa ay ku dambeyn karto. Mareykanka iminka wuxuu xaqiijinayaa ka bixitaankooda kadib in dalkaasi Afghanistan xaaladiisa ay dhinac kale isku rogi karto. ugu dambeyntii xafiiska dacwad oogaha guud ee dalka Madagascar ayaa sheegay inay fashiliyeen isku day lagu doonayo in lagu qaarijiyo madaxweynaha dalkaasi Andry Rajoelina, isla markaana ay xireen dhowr tuhmano oo ajaanib ah iyo sida la sheegay qaarkoodna inay yihiin kuwa u dhashay dalkaasi Madagascar. 2 qof oo Faransiis ayaa ka mid ah dadka loo xireeyay dhacdadan kadib markii Talaadadii la soo dhaafay lagu qabtay jasiiradan ku taala badweynta India, taas oo qayb ka ah baaritaan la sheegay in lagu sameeyo waxyaaleynta dhammaanka dalkaasi Madagascar.
dadka la xiray ayaa waxaa lagu tuhmaya inay doonayeen inay ku qaarijiyaan dalkaasi madagaskar madaxweynaha talada haya waxaana lagu waramaya inay tahay toddobaad gudihiis markii labaad oo arrintaani la shaaciyo. hogaanka dowladda madagaskar waxaa kaloo ay sheegeen in baaritaano ay ku sameyn doonaan cidda ku lugta leh qorshaha la doonayo in lagu qaarijiyo madaxweynaha dalkaasi madagaskar. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracdasho waa naginta macluumaadkan kan xigantaan ku kulmi doona nabad.